بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواح وناكسن لمان شعب كشرفت لك سواق قبل حفلة مدن كبجمو وبوشمال تبديسا بريزيدنتي موتوما برشينسا نانو أوروميا مرو أفاين أيان مدن عبد الرحمن سيلعي مدحوينه ku-xigeenka dawladda jaarka ah ee Soomaaliland madaxda ururka ONLF oo inaga jooga gudoomiye rayaalkahin madaxda ururka WSDP oo inaga joogo gudoomiyaha ururka madaxda xirsi dool xildhibaanada sharafta leh ee maanta mas'uuliyaddan culus ee egmaday shacabka odayaasha madaxweynayaashii hore ee deegaanka soo maray oo iyaguna maanta ayna suurtagal ahaateen halkan aan fadhino haddii ayna u soo marin hawlo fara badan oo aad iyo aad dhibaatooyin u ahaa badankooduna si wanaagsan uga soo gudbay waxaan dhammaantood ku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib waxaan dhammaanteen la soconnaa geedi socodkii dowladnimo ee deegaankeenna ee ka soo bilowday isbeddelkii 1991dii ka dhacay dalka iyo aasaaskii federaalismka ku salaysan qoomiyadaha oo aan filayo maanta inaan 30 ama 11 sano ka joogno muddadii intaas ahayd waxaan soo marnay marxalado aad u kala duwan waxyaalo inay hagaagay baa jira waxyaalo naga xumaaday baa jira saddexdii sano ee isbeddelku hadda uu jirayna sawirka uu leeyahay kuwaan buu la mid ahaa walow xilliga aan soo marnay aan ka hadlayo xilliyada qaarkood oo ahaa kuwii ugu dambeeyay 10 sano u dambeeyay dhibaatooyinka aynu soo marnay 3 sano dhibaatadii ugu badnayd ay dhacday sidaad la socotaan aasaaskii dawlad goboleedyada la aasaasay dalka Itoobiya 1991dii deegaanka Soomaalidu muuna helin wixii loogu qoray dastuurka loogu qoray ee ahaa inuu ismaamulo dhibaatada ugu weyn ee jirtana waxay ahayd ma ahayn shacabka Soomaalida oo xun ma ahayn shacabka Soomaalida oo kala qaybsan ma ahayn shacabka Soomaalida oo kari waayay hogaamin isku duubta ma ahayn الحقيقة waxay gacan shisheeye oo ku dhex jirta oo aan ogolayn shacab Soomaaliya oo midaysan inuu jiro waxa taa maqraadika madaxweynayaasha halkan saaka fadhiya oo mid walba ka mid ah inuu yahay inuu xusuusanayo marxalado isagoo inuu tanaasulo cid walba diyaar u ah loo saamixi waayay kuwa badan oo ka mid ah si gaar ah ay iga sheekeeyeen maadaama badankooda aqoon u leeyahay waxa markaa deegaankeenu maray xaalad guracan oo ah in taladiina magac ahaan shacab Soomaaliyeed lagu maamuso oo la sheego dhab ahaanna kolla si bareeda niman kooxda juntada ee maanta dalka kharibaysa ka mid yihiin ayba iyagu qorayeen wasiirada iyo cid madaxweyne noqonaysa ayna qarsanaynin kolkii dambana markii gacantii noocaas ahayd ee siyaasiyiintii TPLF-tu shacabku ay fahmeen dharkii loo bedeshay oo dirays ku xidhani ay ka baxeen xeradii sarbi ay joogi jireen laakiin ay fadhiisteen harar oo halka ay ka bilaabeen taladeedii marxaladaha noocaas soo maray deegaanku wax walba isdil oo dhacay wax walba inaga xumaaday sumcad darro walba ama musuq iyo dhibaato oo dadka ku timid qabyaaladii iyo ishaysi qaybta ugu weyn aan waxaan u aanaynayaa in gacantaas khaldan ay lahayd yaan aaminsanahay waxaan aaminsanahay isbeddelkii Dr. Abiy Ahmed uu hogaaminayay 3 sano u dambeeyay dhaliil lagu yeelan karaa dhinac adagna uu yeelan karaa duruuf kastana dadku ku kala duwan yahay deegaanadu laakiin deegaankeenu inuu ka nastay dhibaatadii noocaas ahayd taasina ay keentay in Soomaalidu isu tanaasusho in dhalinyarta hogaaminta joogta maanta ayna u kala bixin khadadkii loo kala jeexay ee ahaa in qabaa'il loo kala fadhiisto inayna u kala bixin inay saamaxday hogaaminta wanaagsan ee Dr. Abiy uu ka geystay 3 sano dalka
oo aan aaminsanahay faa'iidada ugu badan shacabka Soomaaliyeed inay helaan laga yaabo deegaano masiibo ay ku noqoto isbeddelkaasi inuu jiro laga yaabo meelo duruufo ku weyn ka duwan inay jiraan laakiin fikir kasto oo ka qabno waxa ka socdo dalka waxa maragmadoona maanta saddexdii sano u dambeysay deegaanka Soomaalida inayna ka dhicin tacadiid ka dhici jiray waxa xaqiiqa saddexdii sano u dambeysay horumar ballaaran oo wanaagsan oo meelo badan laga sixi kala leh laakiin dhaqaalihii deegaanku inuu deegaanka galo shacab Soomaaliyeed qaataan iyagu isku eriya iyagu isku xantaan in la gaaray waxa xaqiiqa ah in diinteenii iyo dhaqankeenii shacabku xor u noqdeen oo maanta astaamihii diinta la isku oriyeen jiray ayna jirin qofkuna xor u yahay sida alla sidoo rabo inuu neeyo waxa xaqiiqa ah in kaalintii iyo sumcaddii aan ku lahayn dalka Itoobiya uu soo noqday oo codkeenu macna leeyahay oo sida maanta xafladan loola socdo imaambuuskeeda iyo sida loo danaynayo ay ka maqraati tahay oo ay ka maqraati ka tahay mansabyada waaweyn ee siyaasadeed ee xisbigu ka mid yahay dalka Itoobiya xisbi hogaamiya xisbiga maanta Soomaaliya loo dhiibay ma dhicin weligeedii Allaheed iska daa inay ku beeraan iyagoo xaaladahaas oo dhan ay jiraan markaa waxaan aaminsanahay saddexdaas sano wax fara badan oo wanaagin inuu jireen wax badan oo goldolooyin ah inay jireen waxyaalaha wanaagga u soo qaadan karna waxaa ka mid ah in dadka intii aqoonta lahayd laga raadiyey in maanta dhalinyarada ama xildhibaanada ama mas'uuliyiinta qalad iyo sax waxay doonaan noqdaan ayna ahayn kuwa xiriyaha ciidanka laga soo qoray kuwa odayaashu noo keeneen ay yihiin qaarkood ama khaldana ama saxsanaadaan kuwa odayaashu aan kala tashanay waa dadkii xildhibaanadu metelayay weeye odayaashu kaalin bay ku leeyihiin talada deegaanka kuwa culimada diinka lagala tashaday kuwa asxaabta saaxiibada leeyahay lagala tashaday ee aan ahayn kuwa inta la soo qoray la oran kuwa in dadkooda dhibaateeyaan ama shacabka noo keediya inay ahayn waa wax aan shaki ku jirin waxa xaqiiqo ah oo jirta in maanta talada siyaasadda ee deegaanku madax banaani hore ayna u helin aan u haysano annagu maadaama ceelka guntiisa ku jirno go'aanada aanu gaarayno aanu madax banaani ka balaarsan tii hore madaxweynayaashu hore haysteen aanu fursad u helay waxyaalaha noogu hagaajiyay inaan isku wadka dadka ka shaqeyno ay ka tahay waxa xaqiiqo ah in xuquuq insaanka lagu tumanayay deegaanka uu ka dhamaaday waxa hubaala in xorriyatu qowl iyo xorriyatu ganacsi iyo xorriyatu dhaqdhaqaaq iyo xorriyatu cibaado intaba maanta deegaanka ka dhaqan galeen waxaan shaki ku jirin in nolosha shacabkeenu meel walba aan joogno rayn iyo naruura ka muuqdo laakiin naruuro ay ku laran tahay cabsi iyo duruufaha dalka isbedelaya iyo kuwa geesku maxay soo wadaana inay jiraan dhinaca kale waxaa hubaala in laga soo gudbay marxalad loo arkay inaan laga gudbi karin dhanka amniga in la adkeeyay amnigii la teeyay ciidamadii qadiyado adkaa oo dal iyo deegaan ba ahaa oo ina soo maray laga soo gudbay la soo maareeyay si shacabka Soomaalida u dana kaalinta aan dalka ku leenahayna aan daawacaynin in loo soo maareeyay waxa xaqiiqada difaaca dalka iyo deegaanka intaba in si mas'uuliyad leh loogu guntaday goldolooyin kastaba ha jiraan waxa xaqiiqada tayada shaqaalaha la qaadanayo iyo qaabka loo qaadanayo in la saxay oo civil service reform fiican la geystay taasoo keentay in aqoonta la qiimeeyo maanta oo waxaan qofka ku soo dhigaynaa ay tahay master buu haystaa forgery baa laga saaray la oranayo taa oo jiilka dambe ku qasbi doonta inay ka baxaan inay nolosha meel dhex ka bilaabaan iyagoo aan rafaadkii loo baahnay iyo dadaalkii u soo maray runtii waxyaalaha inoo hagay waxa xaqiiqa odayaasheena dhaqanka kaalinta siyaasadda ay ku leeyihiin iyagoon ihaaneysnayn iyagoon dhibaato haysanin inay maanta ku leeyihiin haddana loo baahan yahay inta la sii sharciyeeyo oo qaab nadaameed kaalinta odayaasha dhaqanka oo marna aan laga maarmayn iyo hogaaminta siyaasadda la isugu keeni lahaa waxyaalaha maanta inoo hor yaalla ay yihiin inaas waxaan isleeyahay waxyaalaha inoo hagaagay iyo ina kale weeyaan waxyaalaha u baahan in la sii adkeeyo intaa oo dhan la sii adkeeyo u baahan tahay waxaan u aragnaa kow maadaama oo kala guur lagu jiray in duruufo fara badan ay keenayeen jahawareer maalin walba taagan maadaama uu jiray fokaskii loo baahnaa shaqada iyo adeeg bixintu halkii loo baahnaa inaan la gaarsiin marka tayeynta adeeg bixinta la dagaalanka musuqa iyo eexda iyo nidaamka wixii burburinaya in dadaal dheeraad looga baahan yahay
waxaan dareensannahay isqa qabsiga dhinaca amniga ka imanaya dhulka miyiga iyo magaalooyinkaba in qaabkan hadda loo wado qaab ka adag in loo diyaariyo loo baahan yahay waxaan ku baraarugsannahay in qaabka cadaalad soorka shacabka hadday tahay matalaadda siyaasadeed ee la ballaadhiyey oo qayb weyn ka ciyaartay deganaanshaha deegaanka loo baahan yahay in la sii ballaadhiyo oo ciddii ayna gaadhin la sii gaadhsiiyo maadaama ayna dhammaystirnayn waxaan aaminsannahay in arrimahan hadda aan ka hadalay iyo xoojinta amniga ay muhiim yihiin waxaa kaloo iyaduna aan qarsoonayn in hay-adaha cadaaladda sektorka cadaaladda iyo heerarkiisa kala duwan dadaal dheeraada laga geystay oo maanta ayna jirin maxkamado waraaqa suuqa la socdo dadka xuska xukumaya 20 sano laakiin waxaa la isku qabto kala saarideedii weli shacabku sidii loo baahnay ayna u helayn waxyaalahaas leeyahay xooga in la saaro weeye waan ka shaqayn doonaa waxaan ku kalsoonahay 100% inaan soo dhisi doono dawlad waxyaalihii khaldamayna saxda waxyaalihii wanaagsanaana sii wada waxaan aaminsanahay in taasi loo helo loo baahan yahay si dhaba in loo wajaho dhibaatooyinka oo xeerin maadaama shuruucdii kala guurka laga gudbay oo loo baahan yahay in nidaamka dawladnimadu marmarsiyo laga wareystaa una jirin maadaama ayna jirin sidaa daraaddeed walaha aan soo dhisi doono ee dawladda heerarka kala duwan waxaan hordhacan u sii sheegaynaa inaan ku qaadan doono kow kaalinta dumarka oo boqolaal fagaar aan ka sheegnay si dhaba inaan uga midayno way bilaabatay afayeenkii laakiin waxaan rajaynaynaa golaha kaabinetiga haweenku inay soo galaan awaamiirna la soo siiyey iyo muxuu ahaay wax la mid aan ahayn 50% dumarku Soomaaliyeed oo active oo nolosheena haya inay qasab tahay 50% maadaama yihiin matalaad u dhiganta hadaan la heli karin bilo wanaagsan in loo bilaabo taas inay tahay wax waajib oo nasaaran laakiin kaalinta dumarkana aan dumar aan u qalmin inay sii xoojiyaan kaalinta dumarka aan la geyn ee la geeyo dumar awood u leh ragga inay la tartamaan oo booska waxay ku joogaan dumarnimo ayna ahayn ay tahay kartidooda si kalsoonida shacabku ugu qabo dumarku ay kor ugu kacdo taana waan aaminsanahay waxaa kaloo xooga saari doonaa sida aan sheegay inclusivity ama cadaaladda in deegaanada Soomaalida 93 degmo 11 gobol 60 maamul magaalo waxyaalaha tabashooyinka ka jira aan tixgelino oo aan sii ballaarino ka qaybgelidda shacabka Soomaaliyeed si cid walba uga dhex muuqato mashruucan Soomaalinimada la leeyahay iyo deegaankana inay cid walba ay leedahay ka muuqato xoogana la saaro tabashooyinka jira in la saxo waxa kale oo aan ku qaadan doonaa aqoonta iyo khibradda dadkaasi ay u leeyihiin iyo haddii kuwa soo shaqeeyeen kaalintii ay isbedelka ku lahaayeen iyo qaabkii ay u maareynayeen taa macnaheedu ma aha qofkii ka baxa halkaasna inuu yahay qof wax bi'iyo wixii goldolooyinka isaga loo aanaynayo qofka soo galaan qof kuwa ku sii jiray ka fiican inuu yahay ma laakiin marxalad walba waxay leedahay waqtigeeda ciddii aan u aragno marxaladda hadda maanta bilaabatay inay ka bixi karto inaan soo qaadano waxaan isugu day doonaa kaalintii hadda ka hor jirtay ee waxoogaa isku laaqa hogaaminta dhaqanka iyo hogaaminta siyaasadda kaalimahooda ku saabsan qaabkii loo wadi lahaa dawladnimadu in si sharci waafaqsan loo kala saaro oo ra'yi ahayn golayaashii loo baahnaa in la sameeyo taa haddii la sameeyo waxaan aaminsanahay talada deegaanka Soomaalidu hogaamin siyaasadeed oo saxsan odayaal dhaqan oo saxsan culamaa u diin saxsan haddii la helo bulsho toosan in la helayo bulsho toosanina ay noqonayso tiirka ugu weyn ee shacabkan xaqiisa uu ku helayo taadiyadii iyo dhibaatooyinkii boqolaalka sano soo haysteen uu kaga baxayo aan aragnaa inta aan sheegay oo dhan waxaan anigu qabanayo kaliya ma waxaan ku fikiray inaan qabtana ma Sheekh Ahmed Abi uu ku mahadsan yahay dadarankii xusuusintiisii waan ku dadaalaynaa waana dareensannahay mas'uuliyaddaas halka ay gaarsiisan tahay walow aan cid walba isku raacaynin inaan gudanay inaan gudan oo ay tahay dhaqanka bini'aadamka in lagu kala qaybsanaado siyaasadda waxaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa midnimada ummadda inaan ka shaqeyno ninba si uu yaqaanaa laakiin inaan ballaarino fagaarayaasha inaan la hadalno inaan wada xaajoonno cid walba oo diyaara ciddii aan ku qancin in nidaamkani uu sida uu yahay ka qayb gashana inay si xor iyo xalaal banaankaas afkaaraheeda iyo fikradeeda uga wadato taadi iyo dhibaatooyin la isu geysanin
shacabka dhexdiisa aan lagu dagaalamin arrimaha noocaas inay mar dambana aynan deegaankeeni una noqon gole lagu dagaalamo intaasaan ka dadaali doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta halkan fadhida xildhibaanada oo runtii la'aantood habeenii maalin haddayna shaqeeyeen maanta maalinka aynaan nimaadneen oo aan odhan karo tiimkii transitionka ee nala soo shaqeeyey runtii waxay guteen waajibaad aad u waaweyn daliil hadday jirtana annaga naga bilaabmaysaa haddii wanaag jirana kaalinteedaan ku yeelanayna laakiin tiimkii noocaas nala soo shaqeeyay waan u mahadnaqaynaa marxaladda taariikhiga maanta aan taagannahay iyo wanaaga soo kordhay kaalin baad ku leedihiin waad ku ammaanan tihiin insha allah haddii alla yidhaahna inta aynu helayno kuwa innaga ina bedela oo iyana mas-uuliyadda taariikhiga saaran qaata innaga maanta waxaa inoo yaalla ajendayaasha aan ka hadlay iyo kuwo kaloo fara badan oo idin soo wajihi doona inaan xalino waxaan ka codsanayaa shacabka odayaasha gaar ahaan culimaadudiinka inay nala shaqeeyaan oo ay nagula shaqeeyaan nasteex kolkaan saxannahayna inayna taageeraan kolkaan khaldannahayna inayna qabtaan waxaan aaminsanahay inaan fikirkii deegaankaasi ku soo socon lahaa dhanka horumarka gaar ahaan oo horumar aan ku ekayn magaalo heblaha biyo la siiyey iskuul baa la dhisay aan ahayn horumar nolosha dadka ka muuqda oo wejiga dadka iyo dhaqaalahooda iyo inkamkooda kor u qaadaya oo ka ballaaran fikir waxyaalaha la yidhaahdo adeega asaasigoo meelaha la geeyo ka ballaaran inaan ka shaqayn karnaan aaminsannahay bilowyo wanaagsan oo dhanka magaaliinta oo magaalooyinkana waan bilownay inahaasoo dhan wax ku qabsoomaya bilyan laba maaha 3 bilood kadib shacabku wuxuu bilaabi doonaa away wixii la sheegayey waan garanaynaa laakiin samir bay u baahan tahay taana in maaragtay cudaarkeeda naloo hayo xilli walba laakiin wixii aan waan qabanaynaa qorshayaashii inaan soo bandhigno waad mahadsantihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan marti sharafka noo timid ee halkan nala joogta gaar ahaan maamulka oromiya mudane shimalis iyo tiimkiisu oo runtii colaaddii gacanku rimiska ahayd soomaalida iyo oromada in la demiyo si dhaba uga shaqeeyo runtii dadka soomaalida iyadoo mas-uuliyad guud ay naga saaran tahay dalka oo dhan dalka etoobiya oo dhan shucuubta joogta iyo kala diimaha ah kala qoomiyadaha ah iskuwadkooda wanaagooda in laga shaqeeyo ay waajib bini aadam iyo waajib muwaadin ay tahay haddana maamulka oromiya waxaynu nahay dadka aynu wadaagna xuduudda ee noloshooda iyo amnigooda iyo teenu ay isku xidhan yihiin runtii ididiila fiican baa muuqata waxaan ku kalsoonahay niyo wanaagga hadda jirta haddii sii socoto labadaa shacab ma ahoo keliya etoobiya geeska afrika wax fara badan inay wada qabsan doonaan dhibaatooyinkii iyo heryooyinkii saarnaana ay ka bixi doonaan waxaan ugu baaqaynaa ururada nala tartamaya mucaaradka ma nidhaha hadda ururada nala tartamaya in siyaasad xadaarad leh oo tartan leh ay ku socdaan in wixii maaragtay wanaagga ummadda ah iyo qadiyadaha ummadda masiirkeeda ah laga midoobo oo xifaabtan siyaasadeed iyo mid shakhsi aan maaragtay looga gudbin xayndaabada u baahan ummaddan in lagu ilaaliyo waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa maadaama mas-uuliyiinta inoo yimaadeen qaarkood ayna isaga imanuun shirka maanta inay iska yimaadaan sida madaxweynaha oromiya oo kale oo mashruuc aad u ballaaran oo maanta bilaabmaya oo dugsiya uu inoo wado oo magaalada jiga laga dhigi doono oo aan ahayn dugsigii caadiga taqaaneen model schoola runtii jaamacad u dhigma maadaama kaalin weyn uu nagala qaatay walaalayntii labada shacab oromada iyo soomaalida halkan uu nala joogo in kelmado kooban uu rabo inuu shacabka soomaaliyeed u soo bandhigo aan ku casuumo halkan gabajabo oboshmelis welcome jabada Gracias.